Waxa aad u kordhaya hadallada kulkulul ee hawada ay isku marsiinayaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto oo xilligan aad ugu loolamaya doorashooyinka isla markaana Ruto waxa uu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Kenya halka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu doonayo inuu ka shaqeeyo in Raila Amolo Odinga markii ugu horeysay uu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya. madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay mid ka mid ah fagaarayaasha dalka ayaa eedeyn culus u jeediyay ku-xigeenkiisa William Ruto wuxuuna tilmaamay Ruto inuu yahay nin dawladda isaga tagay gabi ahaanba isagoo aan waxba qaban ballanqaadyo horey uu sameeyay ay noqdeen kuwa been abuur ah welina Kenyaanka uu sheegayo ballanqaadyo culus taasi oo uu ku tilmaamay in waxba aysan ka jirin oo xilligan waxba aysan u soo kordhin karin. William Ruto ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay shakhsi iska hadla oo dawladdii uu ka tirsanaa iminka dhaliilaya taasi oo wax lala yaabo uu ku tilmaamay. dhinaca kale musharax madaxweyne xisbiga UDA ahna madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa u jawaabay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. hogaamiyaha ugu sareeya dalka Uhuru Kenyatta oo eedeyn culus u jeediyay ninkan kadib William Ruto waxa uu sheegay xilligan inaysan u banaaneen Uhuru Kenyatta inuu ka qayb qaato ololaha doorashada ee Raila Amolo Odinga isla markaana ninka tartamaya isaga uusan ahayn. ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in marnaba isagu uusan ahayn nin hogaamiye ah oo been badan sidaa daraadeedna Kenyaanka wixii uu ballanqaaday uu sameyn doono. wuxuu si toos ah uga codsaday Uhuru Kenyatta inuu joojiyo ololaha siyaasadeed ee uu ku taageerayo Raila Amolo Odinga isla markaana isaga iyo Raila goobta looga baxo laakiin aysan ahayn in xilligan Uhuru uu garab istaago Raila Amolo Odinga. wuxuu sheegay inuu yahay shakhsi isku kalsoon oo waxqabadkiisa Kenyaanka ay arki doonaan haddii uu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya sidaa daraadeedna isaga uusan diyaar u ahayn kasii hadlidda xaaladda noocan oo kale ah.